waxaa tuma haweeneydii ugu horreysay Masar iyo Carabta ee duuliye noqotay. inantaasi waxay ahayd Latifa Anaadi oo 26 jir ahayd. waxaa loo sameeyey xaflad aad u heersareysa oo ahayd munaasabadii ay guusha ka gaartay tartan duulimaadyada oo loogu qabtay Masar. waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee muslim ah kana soo jeeda dalalka Carabta ee duuliye noqotay. haddaba waa tuma Latifa Anaadi. Latifa Anaadi waxay ku dhalatay Qaahira sanadkii 1907. waxaa dhalay aabbo ka shaqeynayay madbacadda boqortooyada, waxaana ku biirtay waxbarashada tooska ah taas oo ay ku jireen tiro kooban oo dhigeed ay waagaa. dugsiga dhexe markay ku jirtay ayay maqashay Latifa duulimaadyada. arrintaas oo waagaa ahayd wax cusub ayaa maankeeda qabsaday ilaa ay go-aansatay inay ka dhabayso. sanadkii 1932 waxaa la aasaasay dugsiga duulimaadka Masar oo laga furay magaalada Almada. kadibna halkaa ayay ka gashay Latifa. laakiin si hawshaasi ugu suurta gasho Latifa waxaa qasab ahayd in la hubiyo Latifa in ehelkeedu ogol yahay iyo inay iska bixin karto lacagta lagu dhiganayo. Latifa waxay ula timid maamulka dugsiga hooyadeed si ay u buuxiso shardiga koowaad, waxaanay si xeeladeysan shaqo uga heshay dugsiga oo ay xoghayn u noqotay si ay iskaga bixin karto lacagta. arrintaas aabeed waxba kama ogeen inay dugsigaas gashay. Latifa waxay toddobaadkii geli jirtay 2 xiisadood ilaa ay qaadatay 67 saacadood oo tababara oo ay bareen macallimiin Masaari iyo shisheeye ah. sanadkii 1933 ayay Latifa heshay ruqsadda duulimaadka, sidaas ayayna ku noqotay haweeneydii ugu horreysay Masar ee ruqsadda heshay iyo gabadhii labaad ee dunida. waxaa ka horreysay oo keliya gabar u dhalatay waddanka Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Emilia Hart oo keligeed diyaaradda duulin jirtay. waxay Latifa noqotay qofkii 34aad ee ruqsadda qaata dalka Masar. bishii Diseembar 1933 waxaa tartan duulimaadka dheereeya ah lagu qabtay Masar oo ay ka qayb galeen duuliyaal ka socday in ka badan 60 dowladood. Latifa waxay ka qayb gashay tartankaasi inta u dhexeysay Qaahira iyo magaalada Alexandria. dadkii oo dhanna waxay kaga yaabisay inay noqotay qofkii ugu horreeyay ee gaaray goobtii loo tartamayay. dhammaan intii tartanka ku jirtay daqiiqad buuxda ayay ka horreysay, laakiin guddidii ayaa diiday inay u qiraan in guusha iyadu gaartay, kuna dooday inay iska indhatirtay 2 qeybood oo ku yaalay xeeliga badda cad oo aanay ku dul wareegin midkood sidii loo baahnaa, waxaana abaalmarintii sidaa lagu siiyey tartamo Faransiis ahaa. Latifa Anaadi oo noqotay halhees, wargeysyada dalka Masar ayaa ku halqabsan jiray arrintaa ugubka ahayd. waxaana Latifa Anaadi noqotay halhees maadaama ay noqotay haweeneydii u horreysay dalkaas ee diyaarad duulisa, isla markaana dunida u muujisay in gabadha Masaarida ahi aanay ahayn guri joog iyo inay leedahay dhiirani mudan inay caalamka ka yaabiso.